dhawaada barnaamijkeena Astaan Horumar aad uga barateen studio-ga Melbourne wadankan Australia. Barnaamijka Astaan Horumar waxaan ku wareysanaa aqoon-yahano badan oo fiil kala gedisan ka yimid. Caawa barnaamijkeena waxaa marti uga Dr. Yuusuf Sheekh Cumar oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed kuna takhasusay cilmiga social science-ka. Dr. Yuusuf waxbarashadiisa wuxuu kusoo qaatay wadamo kala gedisan wuxuuna ka shaqeeyay meelo badan oo adduunka ka mid ah iyo gaar ahaan Australia. shahaadadiisa koobaad wuxuu ku qaatay wadanka Suudaan, masterskiisa wuxuu ku sameeyay Malaysia, shahaadadiisa PhD-da oo ku sameeyay social science wuxuu ku sameeyay wadankan Australia, Melbourne, La Trobe University. Dr. Yuusuf caawa barnaamijka waxaan kaga wareysan doonaa qoraaladiisa tirada badan oo international level ka ah iyo qoraaladiisa gaarka ah ee markaa uu ka qoray bulshada adduunka. kusoo dhow Puntland TV Dr. Yuusuf Sheekh Cumar. عبد العلمي آدي أدبد مهندسنتهاي. ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa bal inaad dadka u sheegto Yuusuf Sheekh Cumar waa kuma. si fiican baad u sheegtay. waxaan shahaadada ku soo qaatay waxbarashada macallinimo Suudaan. master waxaan ku soo sameeyay wadanka la yiraahdo Malaysia oo ku saabsan cilmiga bulshada gaar ahaan baritaanka luqada Carabiga. master labaad waxaan ku sameeyay Australia La Trobe University oo educational leadership and management. doctorate-kana waxaan ku sameeyay Australia La Trobe University. waxaan ku takhasusay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah iyo siday ula falgalaan wadamada ay u soo qaxeen la yimid gaar ahaan Australia iyo Mareykanka. marka daraasad waxay isbardhiga dhinaca shaqada hadii loo soo laabto waxaan ka soo shaqeeyay meelo badan. Victoria University baan macalinka ahaa, La Trobe baan macalinka ahaa, waxaan ka ahaa cilmi baare Melbourne University. iminkana waxaan ahaa cilmi baare ka shaqeeya meesha la yiraahdo Victorian Transcultural Mental Health. dhinaca qoraalada hadii la fiiriyo yes qoraalka waxaan u leeyahay hiwaayo iyo mataqaana talent. Soomaalida kuma bad afkaan inta badan ka hadalaa laakiin waan isku taxalluujay yarideedii baan soo bilaabay Suudaan anoo jooga. wargeysyada ugu afdheer ka soo baxa wadankan qoraalo badan aan ku sameeyay The Age oo kaleeto iyo The Sydney Morning Herald labadaba qoraalo badan aan ku sameeyay la state article mataqaana gaaraya oo inta badan la xiriira dhalinta Soomaaliyeed iyo la falgalka wadankan mataqaana Australia iyo wax la yiraahdo culture shock. sidoo kale mataqaana international journalists ama wargeysyada caalamka wargeysyana oran wax la yiraahdo magazine academic ah ayagana article la xiriira dhalinta Soomaalida iyo la falgalka wadamada reer galbeedka yaana wax ka qoray. markaas kooban intaas aan u maleynaa ugu muhiimsan tahay Cabdi Cilmi. wax badan ma ka tagtay mashaakil ma laakiin waa u soo noqon doonaa. Dr. Yuusuf Soomaaliya goor ma ka tagtay? Soomaaliya waxaan ka tagay 1989kii dhamaadkeeda waxaan ku noqday 1991kii mar kale anoo Suudaan arday ka ah. mar saddexaad mar labaad waxaan ku noqday 1993 markaas ay ugu dambeysay markaa 23 sano ka hor ay ugu dambeysay markii laga reebo ziyaaradii ugu dambeysay aan ku tagay Soomaaliya. dhawaan baa tagtay. takhasuskaaga dhinaca PhD-da waxa uu ahaa topic aan runtii horay loo dooran saan isleeyahay adaa isaydoon. maxaa kugu kalifay markaa inaad aado dhalinta yaryar oo aad cilmi baariskaada aad ugu samaysay? waa su'aal qiimo badan Cabdi. dhalinta Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qurba joogta wadamada aan ku noolahay inta badan aad looma daryeelo, culays badan lama saaro. marka dadka waaweyn ee Soomaalida culayskooda iyo dadaalkooda iyo energy-gooda wuxuu aad ugu salaysan yahay dadka waaweyn iyo wadankii. marka waxaan ii muuqatay dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan lahayn wax la yiraahdo platform ama meel ay isugu yimaadaan ama wax danahooda mataqaana matala ama wax dhiiri geliya ama ku dayasho wanaagsan iyo wax la yiraahdo role model mataqaana u sameeya ama ogaada sida ay u fikiraan ayaga waalidiinta xiriir ka dhaxeeya ayaga iyo wadanka loo yimid xiriir ka dhaxeeya mustaqbalka waxay higsanayaan himiladooda waxa ay tahay. marka waxa wax baaritaan ku sameeya oo ogaada in loo baahan yahay. marka taas ay ugu kaliftay iyo iskuuladan ka shaqeynaya oo wax badan su'aalo badan la iga weydiiyay inaan dhaqanka Soomaalida iyo dhalinta Soomaalida iyo la falgalka wadamadan aan ka jawaabo. marka waxyaalahaas oo dhan isbiirsada oo igu kalifay inaan u doorto mawduuca doctorate-kayga inaan ku sameeyo dhalinta Soomaalida ee qurba joogta. dhawaan waxaad tagtay Soomaaliya gaar ahaan waxaad booqatay magaalada Muqdisho. barnaamijkaagan la yiraahdo xoojinta nabadda baan jeclaan lahaa bal inaad faahfaahiso caaw
barnaamijkaagan muxuu yahay maxaa kuu kalifay arrintan ah xoojinta nabadda inkastoo nabad loo wada baahan yahay haddana si gaar ay kuu qosaysa adigaad mooda waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan cabdi barnaamijkan waxa igu kalifay waxa ummaddeeni haysta 25 sano ugu dambeysay oo nabadgelyo xumo dagaal iyo mataqaanaa cadaalad xumo iyo dulmi marka waa mas'uuliyad qof kastaba dhinac ka saaran dhinacu awoodo inuu wax ka qabto dagaalkii sokeeye wuxuu burburiyay waxa la yiraahdo kalsoonida ummadda ayuu burburiyay wuxuu burburiyay waxa la yiraahdo community spirit and solidarity waxa la yiraahdo tadaamun ama isku tiirsanaan dareen wadaag iyo ummad hal dhinac u jeeda dareenka noocaasa wuu burburiyay ama waxa la yiraahdo central identity of Somali nationality qofka Soomaaliga ama ummadda Soomaaliyeed wixii isku hayay identity-ga u ahaa ama aqoonsiga iyo mataqaanaa buriyay khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed qalbi jab badan ay mataqaanaa la soo kusoo kulmeen ama la soo mataqaanaa darseen marka arrimahaas oo dhan baa waxay igu kalifeen bal inaan isku dayo in waxa la yiraahdo niyad dhis daris wanaag soo kabasho kalsooni abuuris mustaqbal wanaagsan arrimo noocaas ah dhalinta inaan kala qayb qaato oo intooda badani nabadda u wada adeegayaan marka sidaas waxa Cabdilmi adoo iisoo koobay 23 sano waa muddo dheer markaad noqotay hubaal in wax badan isbedel aad aragtay maxaad jeclaysatay maxaase ku dhibay waa su'aal qiimo badan Cabdi waxyaalaha ay dhibay waxaa kamid ahayd jacaylka aan ku soo koobo aan ugu dambaysiyo waxyaalaha ay dhibay runtii waxaa kamid ahayd ummad aad u baahan baan 23 sano ka bacdi ummadda daalaysa suxul doobaysa isku dayaysa inay mataqaanaa noolaato laakiin noloshii meel adag ay ka gashay kaalmo badan aan haysanin caalamkii uusan mataqaanaa dan weyn ka lahayn sida carabaha maanta loogu gurmarayo aad u jeedaa Syria iyo waxa dhacay adduunka hal mar mataqaanaa la wada kacay ummad 20 iyo dhowr sano ka bacdi dagaalkii iyo burburkii oo ka muuqda wajigooda hani mataqaanaa calaamadihii ma oranayo si toos ah uga muuqdaan laakiin wajigooda aad ka aqrin kartaa sida guryaha u burbureen wadooyinka u burbureen iyo dadkan aad u fahmaysaa burbur badan inuu dareenkoodii iyo naftii iyo himiladiiba mataqaanaa u soo gaaray taasi waa dhinaca mataqaanaa waxyaalaha iga nixiyay waxyaalahan ku farxay waxaa kamid ah ummad haddana dadaalaysa isku dayaysa in mataqaanaa ay nolosha la dagaalanto magaalo aan xabad ka dhacaynin inkastoo qaraxyo dhacaan laakiin haddana wax qori wata oo nahay ciidamada dawladda ama waxyaalaha private security mataqaanaa ma arkaysid ummad subaxii waxbarasho u wada dareeraysa oo haddaad subaxii soo kacday early in the morning aad arkayso dhalinyaradii ayagoo dharkii jaallaha buluuga mataqaanaa qaba iskuulka u wada socda nolosha shacabka caadiga ah oo aad u dhismaysa qurbo joog badan oo soo laabatay private sector-ka oo aad iyo aad si xoogan mataqaanaa u dhismaya marka ummad soo kabanaysa oo u baahan laakiin gacan qabasho laakiin soo kabanaysa ayaa aad iyo aad mataqaanaa runtii ii farxisay ilaa haddan xiriir baanu leenahay barnaamijkan xoojinta nabadda ma waxaan dhihi karaa wuxuu kugu dhashay markaad hadda xamar tagtay mise barnaamijku waaba la tagtay adoo wata ayaad la tagtay barnaamijka xoojinta nabadda waxay ugu dhashay 1991 dagaalkii sokeeye markuu dhacay waraaqihii nooga iman jiray Soomaaliya noo ahaa wax la yiraahdo lifeline wadanka nagu xiri jiray dareenka wadaag iyo waraaqihii gacanta lagu soo qori jiray ka timid walaalo ka timid saaxiib ka timid hiblaayo ka timid xitaa gabdhihii la jeclaa ayadaas waxay naga go'een dagaalkii markuu istaagay wuxuu emotionally waxa na soo gaaray damage dareen ahaan burbur baa na soo gaaray waxyaalaha joojiyay waxay ahayd dagaal iyo nabad xumo marka wagaas waxaan yiri waa inaan ka qayb qaataa markay duruuftu ii saamaxdo tigid baan xaq u lahaa markaan jaamacadda dhameeyay 94 inaan wadankii ku laabto dawladda Suudaan waxay tiri wadankii idin kuma celin karo marka qofkii raba iska sugo intuu wadankii hagaagayo saan u sugayay haddana Malaysia ku aaday tigidkayga halkiiba ku beerta roobay xanuun kale igu sii ahayd waxaa laakiin si ficil ah u guda galay 2010 maraan Talyaaniga u aaday ee course hal bil soconayay oo dhinaca nabadeynta iyo wax la yiraahdo conflict transformation ka la xiriira yaan aad ficil ahaan u dhaxgalay xaaskaygu markay timidna meeshii baan ka sii wadnay marka barnaamijku qorshihiisa muddan u wadnay marka annagoo habaysan oo jaamacadda la sii hadalay oo ardayda iyo dadkana caawin lahaa la sii diyaariyay waxaan naga diyaariyahno meesha ku tagnay marka qorshaana ku tagnay marka waa wadateen way barnaamijka xoojinta nabadda waan wadanaha hadafka barnaamijka xoojinta nabadda
dad intee leeg baa kula socda yaa kaala qayb galaya ma tegayaa meelo kale oon yani Soomaaliya ma tegayaa muxuu yahay markaa mustaqbalka dheer waa su'aal da'weyn xoojinta nabadda hal qof ma fulin karo waad fahmi kartaa barnaamij aan Muqdisho ku tagnay aniga xaaskaygu aan soo wada fulinay laba qof bas inaysan wadanin meeshan dad badan baa naga taageeray hiriyo baan la garab istaagay Soomaaliya iyo dadka la saaxiibadayada ah oo dadkan cadaanka iyo Australiaanka ah jaamacadan u tagnay staafkeeda iyo hoggaankeeda sare iyo ardaydu way in soo wada dhaweeyeen way ka wada qayb qaateen intii dhexda aan ku sii jiray ilaa Nairobi guriyihii aan degaynay dad ka qayb qaatay weeye waxa la yiri maadaama aydan wax badan wadanin duruuftiinu ay ma taqaan aad u yar adag tahay dad guriyahooda yiri daga marka soo wadaadaan wadankii ama ka soo laabatan firi ku degaan aad cuntada ma taqaana nala cuna waa ka qayb qaadasho waa dhiirigelintu waa ka qayb qaadasho marka dad badan ayaa ka qayb qaatay laakiin waxa uu ahaa laf dhabar aniga xaaskayga iyadana qof akaademiga Dr. Khadija yaa ficil ahaan u fulinaynay Muqdisho ka bilabanay Puntland waan tagaynaa waxaanu bilownay ma taqaana wada hadal dad saaxiiba oo reer Australia hadana wadankii jooga hooyo oo jooga magaalada Garowe yaanu la xiriiray dadkaas xiriir hada jaamacaadka noo sameynaya marka jaaliyada reer Puntland Innovation ka soo joogta Melbourne qaar badan oo kamid ah adiga iyo asxaab kale taba ayagana waan ma taqaana waan wada xiriirnay gudahana waan la xiriiray marka Puntland waa talaabada koobaad hadda waxaanu tagaynaa hadii alla idmo magaalada Garowe mustaqbalka dheer xagee baa higsanaysaa Dr. Yusuf xagee baa u socotaa maxaad filaysaa anaro 5 sano soo socota waxaanu rabnaa hadii alla idmo aniga xaaskaygu barnaamijkan inaan ku qaadano noloshada inta ka dhiman taasi waa wax lama taabtaan ah marka noloshadana alla og xilliga ay ku egtahay 5 sano 1 sano 20 sano 50 sano alla og laakiin waxa inaan ku qaadano taasi waa qorshe koobaad talabaad marka si hadda noo qorshaysan koo barnaamijkan tababarka ah oo ardayda jaamacaadka iyo dadka da'yarta aanu siinayna waanu sii waday wajiga labaad waxaanu sameeynaa hadii alla 3 sano ee soo socota inaanu sameeyno maktabad oo aan ku ah arrimaha nabadda oo wixii buugaag ama resource ama macluumaad laga aruuriyo nabadda gaar ahaan wadamada dagaalada ka dhaceen sida Sri Lanka oo kale South of Sudan Uganda mataqaana Rwanda wadankii Zaire la oran jiray wadamo badan oo Asia Africa kamid ah Latin America si khibradooda aan uga faa'iideysano inaanu soo aruurino marka maktabad oo arrimahaas khaas u ah dhisidda nabadda Soomaaliyeed inaanu mataqaana sameeyno wixii buugaag caana ilaa hadda 200 buug ilaa 300 buug hadda noo astaysan inaanu soo gadano $20 qaarkood yihiin qaarkood 100 yihiin qaarkood ka yar ka badan yihiin marka maktabadaasi marjiciyeen ay reference meel loo laabto qofkii raba inuu wadanka caawiyo nabadiisa wax ka dhiso ardayda mataqaana baaritaanka sameynaya hay'adaha internationalka ah dawladaha waxaan ka wada goboleedyada midda federaalka ah iyo cidii wanaagga Soomaaliya danaysa meel ay ka bilaabaan inay helaan wayna qorshaysan waxaan noo qorshaysan hadii alla idmo inaanu sameeyno machad ama college wax u dhigma oo mustaqbalka fog laga yaabo jaamacad inuu noqdo oo laakiin arrimaha peace-ka nabadda iyo colaadaha lagu darso waxyaalaha keena iyo sidii xal mataqaana loogu heli lahaana niyadaanu mataqaana ku haynaa marka barnaamijku sidaas u socda hadii alla idmo marka 5 sano soo socota machadkaas inuu noo hirgalo dhismihiisi inaanu mataqaana helo dhul inaanu helo maktabada inaan mataqaana sameeyno traininada inaanu gaarsiino gobolada dalka gaar ahaan meelahan u aragno inay muhiim tahay ama baahida badan ay ka jirto dad badan oo dhalinyaro ah inaanu mataqaana involve garayno dumar badanna aanu waliba dhinaca dumarka anu program baan ahay gabdho badan ka qayb qaataan barnaamijkan waxa weeye barnaamij aad u ballaaran runtii rajada iyo kalsoonida aad qabtaa dad intee la eg baad la kulantay oo qaba oo arintan soo dhaweynayo aad isleedahay waxay noqon doonaan garbihii iyo baalashii magaraysaa socodsiin lahaa cabdi cilmi barnaamijka saan u wadno waa qaab ku cusub nolosha Soomaalida waxaanu rabnaa heel iyo hooba inaan Soomaalida ka helo barnaamijkani inuu noqdo wax Soomaalidu ay iska leeyihiin inay dareemaan wax la yiraahdo ownership ayagu waxay leeyihiin inuu noqdo waxaanu ku filaynaa kharajka aan ku filinayno inuu Soomaali ka yimaado si dadku ayaga inay leeyihiin u dareemaan aad isugu ma dayno in hay'adaha shisheeye ama wadamo kale aanu kaalmo weydiisano
maskax iyo maalba waan haynaa صح waa qayb ka mid ah kalsooni soo celinta dadkaagu inay ku caawiyaan ku garab istaagaan kii waxaya wax kugu daro kii buug haya buug ku siiyo kii haya kaalmo kale ku siiyo markaan Finland tagay barnaamijka waxaan u sharxay jaaliyadda Finland ee mataqaana Soomaalida marka ninbaa wuxuu yiri dhul baan kugu deeqay ninbaa wuxuu yiri malaaq baan ahay barnaamijkana waan u bogay marka wuxuu yiri dhul baan ku siinay marka aad dadkii timaado kala soo xiriir marka barnaamijkan waxaa ka qayb qaadan ummadda Soomaaliyeed baan rajaynaynaa wixii aad u xiiseynaya inay ka wada qayb qaataan iyo dadka saaxiibka inuu nahay ee arrimaha Soomaaliya wanaagooda mataqaana daneeyaba inay ka qayb qaataan marka barnaamijku inuu sidaas noqdaan rajaynaynaa haddii alla idmo barnaamijku waa bilow asaga isfuri doona xaalad badan baan baran doonaa annaga khibrad badan xitaa aan ka faa'iideysan doonaa wax badan iska bedeli doona qaabkan u fikirayna qaabka wax u dhici doonaan laakiin waxaan ku kalsoonahay in ummadda Soomaaliyeed ay qayb weyn ka qaadan doonto barnaamijka aan qabanayno 3 Oktoobar inuu noqon doono basaldhigi mataqaana caawinta iyo dhiirigelinta ummaddu ay ka imaanayaan waxaanu qabanaynaa 3 bisha Oktoobar waa muddo hadda waxaanu malayn hal usbuuc iyo meelahaas oo kaleeta ah yaa inaga xiga ogeysiiskiisina waad u jeedaayo waa kan kaleeta meesha yaala nabad iyo caano nabad iyo barwaaqo ha yani noqo qof oo isbedelka keena ummadda Soomaaliyeed waxay taagan tahay meel isgoysa ciwaanku waa mataqaana noocaas weeye gabayaa jiri doona movie aan ka soo sameynay ama film aanu ka soo sameynay ardaydii iyo nidaamkii aan ku soo aragnay Muqdisho iskuulaadkii yaa hadii alla idmo jiri doona marka waa buugan ka qoray shaqadayda marka buugani waxa weeye baaritaan aan ku sameeyay nimanka muslimiinta ee ka yimid geeska Afrika ee ku nool Australia ya qaabka ay u dabaraan ama u maamulaan wareerka iyo isku buuqa iyo mataqaana wax la yiraahdo depressionka iyo isla hadalka iyo walwalka nimanka Afrikaanka ee muslimiintu siday dhibaatooyinkooda mataqaana u xaliyaan marka qaar cumraday aadaan qaar xajka aadaan qaar tigidhada iska goostaan Afrika iska aadaan qaar waxay dhahaan meel aadaanka laga maqlayaan maadna qaar waxay dhahaan inkastoo saar tahay oo ayna saxayn dumar labaad baan guursanaa si oo nooga boo mataqaana stress laakiin stress iyo qaylo kale ee si abuuraan qaar meelaha wadankan aadaan mataqaana qaar qaaba quraana lagu aqriyaa qaar qaaba badan ay xaliyaan buugaaga labaad buugan wuxuu ka hadlayaa nimanka Soomaalida qaadka ku cunubsanaya marka nimanka noocaas iyo qoysaskooda sidii loo caawin lahaa qaadku dhib badan uu keenaa isaga mashaqaysto ka dhiga hurdaa la tagta asaga xaasaskooda isku dhaca markay qaadku uu ka baxo way dagaalamaan wuxuu feeray u yar dhiibaan waxaa la ogaaday nimanka qaadka cuna caruurtoodana daraagada ama draaga inay u dhow yihiin waa ku dayasho marka meesha ilmu qaad aadi lahaa wiilku wuxuu lahaa bay qaad bucana anama daraagada mataqaana draaga man dhinacay ka aado marka arrimahaas oo kale sida wax looga qaban lahaa wuxuu noqonayaa wax aan shida badan marka sidii loo caawin lahaa iyo sababta ay cunaan mataqaana maxay tahay dadka cunaan nooc moo yahay in inta la eeg bulshada ka joojiya inay ummadda dhex galaan qaadku dhibaato badan buu keenaa marka arrimahaas aan ku lafaguraynay jaaliyadda Soomaaliyeed baan wareysanay marka waa buugan noocaas way laakiin dhibkiisa badan oo familkii uu burburin lacagtii uu khasaare u keeni qofka wuxuu ka dhigay qof xanaaqsan dhibaato aan soo koobi karin iyo mataqaana iyo keena qaadku caafimaadkii iyo nadaafadiina aad buu u siileetaa sida oo kale maadaama aad soo qaaday qaadka ninka qaadid la baxay oo Soomaaliya wareegaya miyaa istaqaanada laakiin nin geesi oo haliyay ah yaa u arkaa inuu yahay Soomaaliyeed aqoon u meelaha cawaale magaciisa waan aqaana waa nin caana dadku wada yaqaanaan waa hero ayis waxa tahay nin gabayada waa qortaa waana tirsan hal gabay oo aad jeceshahay oo nabadda xageeda kula galay ma jira wuu jiraa gabay aan tiriyay hadda ma xifdisane laakiin aan ciwaan uga dhigay maamaha Soomaaliyeed oo yiraahdo aan wada hadallo waa aan heshiino waxaan u malayn wuxuu kaga bilaabanayay hadal horumar weeyaan ama hirtile iyo hubla eeda weeyaan marka hadalku ama asaga horumar iyo wanaag iyo isku soo dhawaansho keena ama waa hubka oo kale asaga ka khatarsan xitaa hubka oo wax burburiya qoriga la qaadaya iyo dagaalka waxa ka horeeya afka markii afka la iska weeraro oo afka laga heshiin waayo oo lagu kala boodo markaas qoriguna raaca marka hadal horumar weeyaan ama hirtile iyo hubla eeda weeyaan
ka waran shirkii aqoon-yahanada ee aad dhawaan uga qayb gashay Helsinki shirka maxaa shirkaasi wuxuu ahaa shirkii cilmi baarista Soomaaliyeed 3 sano mar la qaban jiray wuxuu soo bilowday 1979 Muqdisho lagu qabtay waagaas markii ugu dambeysay Muqdisho lagu qabtayna waxaad 1989 intayna dawladii dhicin waaga jirtay hal sano iyo bar ka hor marka shir noocaasa shir wuxuu ahaa runtii aad iyo aad wax uga bedelay moraalkayga qalbiga ay soo dhisay dad aad u badan oo Soomaaliyeed aqoon-yahana professors dhalinyaro badan oo mataqaana PhD sameeyay oo gabdho u badan actually oo ka yimid mataqaana North America Mareykanka iyo Canada ama Europe wadamadeeda kala gedsan ka yimid iyo dad kale oo Soomaali aqoon-yahano Carabaha xitaa ka yimid iyo wadankii hooyada waan kula soo kulmay marka waxa looga hadlay wax la yiraahdo Soomaalida wax la yiraahdo identity waxa la yiraahdo intergenerational gap ama dadka waaweyn iyo dadka da'da farqiga u dhaxeeya rag iyo dumarka farqiga u dhaxeeya gaar ahaan marka qurbaha lagu nool yahay iyo waxa la yiraahdo Somali state identity ummadda Soomaaliyeed as nation ummad ahaan identity-geeda iyo asal iyo isir ahaan aqoonsigeedii ummad ahaan lagu yaqaan xagee u socotaa state-yadan baa furfuri doona oo meesha ay mataqaana ku milmi doontaa oo iska burburi doontaa meesha state-yadani way xoojin doonaan ma qabiilka ka xoog batay Somali identity wala Somali central identity xagee ku dambeysay marka shir aad iyo aad u qiimo badan way dad qiimo badan ka hadleen iyo aha Cabdi Soomaaliya oo dhan waxa ku qorshaysan in aad diilahayd ama tagto ama aad laama ka furto hadda xagee baa laama ku leeyahay mashruucan xoojinta nabad waa su'aal wanaagsan waxaan rabaa wax la yiraahdo bottom up inaan xagga hoose ka soo dhiso marka hoose anagoo laama ka soo sameeyno inaan tii weyneed sameeyno ma rabno intaan mid weyn sameeyno inaan laamaha hoos u dejino marka laantii koobaad waxaan ka sameeynay Australia talabaad hadda insha Allah waxaan ka sameynaynaa London ta saddexaad waxaan ka sameynaynaa North America saldhiga wuxuu noqon doonaa wadanka hooyo adinka bacdina goboladiisa ama isteedada kala gedisan ay noqon doonaan marka waa bilow waa sida aan maskaxda ku hayna laakiin laanta koobaad waxay ka hirgashay Australia 3 October laantaas ma taqaanaa soo dhaweynaysa daafurkeeda iyo wixii iska leh aan kula kaftano Soomaali baa tahay aqoon-yahan baa tahay barnaamijka xoojinta nabaddu salka wuxuu ku hayaa niman mutacalimiin oo raba in ay siyaasadda ka qayb galaan mise wuxuu ku ekaanayaa oo kaliya samafalkan iyo nabadda raadista siyaasadda sarjab kale aan kula socota waa su'aal aan filaynin laakiin aan kaaga jawaabo horta anigu siyaasad uma socdo umana arka inaan wax ka keenayo qof wax ka keenaa jira ma ogtahay marka dhinac wax ka keenayo waxa weeye inaan bulshada dhinac kale saameyn kaga yeesho marka barnaamijkan siyaasad shaqo kuma leh dad siyaasad watana shaqo kuma leh anigii xaaskayga bilownay qofkii siyaasi oo ka faa'iideysan asaga u taala siyaasiyiintu waa dad Soomaaliyeed oo wax qabanaya saaxiibo waa la noqonaynaa wadooyinkay mataqaana ku furayaan waxyaalo badan ay ku saaray wadamada ayaga maamula laakiin siyaasad shaqo kuma leh waxaan rabnaa meelka Soomaaliya inaan ka tagno inaan Hargeysa tagnaan rabnaa hadii alla idmo waxaan rabnaa inaan tagno duruufta hadii noo saamaxdo Kismaayo inaan tagno NFD inaan tagno gobolkan Soomaalida ee mataqaana Ethiopia inta la yiraahdo the Horn of Africa oo inta Soomaalidu degto way hadafka iyagu markaas siyaasad anagu shaqo kuma leeyin wax siyaasad aan shaqo ku leenahay ma jirto umana maleynayeen aan isbedeli doono alla qofka bini'aadamka inuu isbedeli doono laakiin hadda niyada kuma hayno umana socno siyaasad Soomaaliya sareeda haday ku warto hadduu silaciyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed Soomaali baale ugu dambeyntii dardaarankaga ugu dambeeyay xoojinta nabadda maxaad Soomaaliya ku dhihi lahayd dardaarankaygu waxaa weeye nabaddu waa wax la yiraahdo process waa wada socota waa jid weeye ma aha meel ugu dambaysa oo la gaarayo marka ugu dambaysa rajo weyn baan qabaa Soomaalidu cagta waxay saartay wadadii wanaagsanayd soo kabasho qiimo badan xoog badan jirta tababar bilow ana waan ku jiraa marka timaada dawladnimadka iyo wax la yiraahdo governing system dhibaatadu dhowr iyo 20 sano socotay waqti waa laga yaabaa inay sii socoto aqliga markii la kaashado laakiin wanaagii baa xoog badan marka horumar baa ay muuqda marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa nabad idinka gacmaha ku haystaan cid shisheeye ha ka sugina kaalmo
soomaali kaalmadeeda iyo nabadeedu soomaali gacanteeday ku jirtaa waxaan soomaalihan way ku caawin karaan qofka aan soomaaliga ahayn hadduu rabo inuu wadanka burburiyana ku soomaaliya unbuu adeegsan haddii uu rabo inuu dhisana ku soomaaliya oo daacada unbuu garab istaagi marka waxa wax burburiye ama dubiya waa gacan soomaaliyeed marka ha bataan gacmaha waxa dhisa gacmaha nabadda keena gacmaha rajada leh gacmaha himilada leh ha bataan kuwaasaana batay waana ku kalsoonahay cabdi aad iyo aad baa umahadsantaha adigaa mudan barnaamijkeeni astaan horumar oon caawa ku wareysanayay dr yuusuf sheekh cumar intaa ayaan rabaa inaan kusoo koobo barnaamijka astaan horumar asbuuca soo socda intaynu ku kulmayno waa cabdicilmi oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta dr yuusuf aad baan kugu mahadinayaa wareysigaan aad ogolaatay waad mahadsan tahay aad iyo aad